laba maalmood ka hor khudbad uu imaamka al-Azhar al-Shariif Imaam Ahmed al-Dayib uu jeediyey wuxuu kaga hadlay diinta cusub ee Ibraahimiyadda. sidoo kale waxa uu imaamku weerar cad ku qaaday kooxda Ibraahimiyadda isagoo tilmaamay inay tahay riyo aan rumoobayn, taas oo lagu soo nooleynayo khilaaf soo jiitamaya in ka badan hal sano. haddaba waa maxay sheekada Ibraahimiyaddu? ku soo dhawaada xubinteenna maanta. magacayguna waa Cali Ibraahim. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin ama looguma dhawaaqin diinta cusub ee Ibraahimiyadda loogu magac daray, mana laha wax aasaas ah iyo dad aaminsantoona, balse waa mashruuc ay hadalhayntiisu in muddo ah socotay, taas oo lagu sheegay in ay tahay diin laga soo minguuriyey ama lagu mideynayo caqiidooyinka ugu muhiimsan ee saddexda diimood ee kala ah Muslimka, Kiristanka iyo Yuhuudiyadda. saddexdaas oo isku dhafan ayaa loo bixiyay diinta Ibraahimiya iyadoo loo nisbeeyay Nabi Ibraahim calayhi salaam. hadafka ugu muhiimsan ee mashruucan laga leeyahay ayaa ah in ahmiyad gaar ah la siiyo xiriirka diimaha, iyada oo laga fogaanayo wax kasta oo isku dhac keenaya ama bulshooyinka isku dhac ka dhex abuuraya. ujeedada la sheegay in ay diintan cusub xoogga saarayso ayaa ah in bulshooyinka iyo wadamada dhexdooda nabad lagaga dhex abuuro, si meesha looga saaro khilaafka ku salaysan kala duwanaanshaha fikradeed ee diimaha. diintan cusub ee Ibraahimiyadda ayaan weli la xaqiijin karin inay aragti siyaasadeed ka dambayso, balse dadkii baraha bulshada arrintan kaga falceliyay ayaa tilmaamay siyaasad diin loogu soo gabanayo in ay tahay Ibraahimiyaddu. dadka fikirka noocaas qabana waxaa ka mid ah baadariga qibdiyiinta reer Masar, wuxuuna sheegay diinta Ibraahimiyaddu in ay tahay baaq la siyaasadeeyay oo loogu soo gabanayo in lagu dhagro diimaha soo jireenka ah, waa Kiristanka, Muslimka iyo Yuhuudiyadda. adeegsiga ama isticmaalka ereyga Ibraahimiyadda wuxuu soo ifbaxay wixii ka dambeeyay markii la saxeexay heshiiskii lagu soo celinayay calaaqaadkii isu tagga Imaaraadka iyo Bahrain ay la lahaayeen Israa'iil ee la saxeexay bishii Sebtembar ee sanadkii hore. heshiiskaasi oo Mareykanku soo agaasimay ayna horkacayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo la taliyihiisii Jared Kushner ayaa lagu magac daray heshiiskii Ibraahimiyadda. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u dhignaa sida tan: waxaan dhiirigelinaynaa dadaalada lagu taageerayo wadahadallada dhaqamada iyo diimaha dhexdooda si loo horumariyo dhaqanka nabadda ee ka dhexeeya saddexda diimood iyo Ibraahimiyadda. arrinta kale ee xusida mudanna waxay tahay amiirkii Dubai Mohammed bin Sayid amarkii uu bixiyay ee ahaa in la aasaaso golaha qoyska Ibraahimiyadda sanad iyo badh ka hor inta aan la gaadhin heshiiskii soo nooleynta calaaqaadka Israa'iil ay la lahaayeen Imaaraadka iyo Bahrain. golaha qoyska Ibraahimiyadda oo ka kooban masjid, kiniisad iyo macbadka Yuhuudda waxaa laga wadaa in 2023 laga furo isu tagga Imaaraadka. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso siday suuragal u tahay in la dhiso goob isugu jirta masjid, kiniisad iyo macbad, balse qorshuhu waa isdhexgalka diimaha oo waxaa hal saf ku wada dukan doona qof Masiixi ah, qof Muslim ah iyo qof Yuhuudi ah. xaalku waxa uu noqon doonaa lakum diinukum waliya diin. khilaafka iyo hadalhaynta Ibraahimiyaddu ma aha mid ka timid khudbadda Sheekha al-Azhar, balse bishii March ee sanadkan hogaamiyaha la baxay al-Sadri ee reer Ciraaq wuxuu bartiisa Twitterka ku soo qoray in aysan iska hor imanayn diinta xagga Rabbi laga aqoonsan yahay ee Islaamka iyo Ibraahimiyaddu. bishii February ee sanadkan ururka culimada Islaamka caalamku waxay qabteen mandhig ay ugu magac dareen ummadda Islaamku mowqifka ay iska taagayso diinta Ibraahimiyadda. culimo badan ayaa si toos ah iyo si dadbanba uga soo horjeestay mashruucan cusub ee Ibraahimiyadda. intaas ayaan ku hakinaynaa xubinteenii maanta. intaynu mar kale kulmi doono isma dhaafno.